waxaan isku dayaynaa inaan dadka kasbanno oo wax qabad dhaba oo la taaban karo dadka oo iyagu naftooda ay taageerayaan inay helaan waxaana ugu horeysa wax qabadka in dadka la difaaco dadka in la difaaco oo hagardaamada iyo dhibaatada laga daayo laga ilaaliyo oo shacabku ammaan u helo nabad helo taas ugu muhiimsan oo aanan ogolaanin oo kursaanaan ku bedelanin wax walba oo siyaasada ama Itoobiya ka yimaado ama Mareykanka ka yimaado ama Mexico ka yimaado oo dadkaas oo dambe hagardaamo lagu sameeyo inaan ogolaanin hadday noo noqotana kursiga aan uga tagno nidaamada taan ma yeeli karo arintaas ma yeeli karo dadka anaga way iman kartaa birin arrimihii hadda koor inay istimaantana way iman karaan siyaasaddu waa isku gafi karaa way soo bixi karaan waxyaabo marka la isku qoonsanayo ama deegaan ha noqoto ama federaal ha noqoto inaan shacabkana u istaagno nafta u hurno maayan nidhaahno diidno wixii xaqiraada iyo wixii dil aan diidno annagu diyaar baan nahay shacabkuna waxaan rabnaa inuu garab istaagaan arrintaas oo iyaguna ay wixii maaragtay gal ay u arkaan iyaga lagu difaacayo ay u soo istaagaan sida ummadaha adduunka aan caadi ugu noolaano waxaan meeshan ka dhac jiray iyo cabsida iyo duliga meeshan yaala anuu dalal farbadan ka soo shaqeeyay adduun badan baan maray meel uu ka jira adduunka ma jiro dadkeenu soo noolyihiin qof magaalada ku dhashay cabsi ku noolaanaya cabsi oo qofku ka cabsanayaan qof aan magaalada u dhalan u yahay ama qomiyadiisa baan ahayn inaga baan inagu haya haba yaraatay waxyaalaha maaragtay cadifadana gelinay waxa kamid ah meel walba adduunka aad marto wax laga gudbay oo qarnigii 15aad iyo 16aad adduunku ka gudbay inaga in haysta oo cabsiya naftiisa xorriyadda asaasiga qofku sidoo u noolaanayo inuu ka cabsado arintaasna wali way sii jirtaa anigu dawladda amaana ila oranayno hana amaanina qofkana amaana qof haadaan nidada u arkaano hana amaanina wixii khalad aragtaana sheega wixii sax ay aragtaana nagu taageero idinku ka duulayo aaminaad diin iyo saad wax u aragtaan taasaan maaragtay yaan dardaarmaynaa wixii dhibaato wadan ka dhacay waa laga daba tegayaa isla xisaabtan dhaba jiraysa idinka uu halaydinka helo in wixii shalay dhacay dadkii sameeyay marka laga daba tago idinku ayaan ehel iyo qaraabo u noqonin haddana ay taagan tahay nin walba oo tuugaha oo malaayiin lacag dhacay oo hooyada masaakiinta iyadoo meel lagu dhaxtariyaan la haysan 250 qasri dhisanayay marka la qabtay ee la xidho odayaal baa soo abaabulaya koofiyada xidhan odayaasha imanaya wiil buu noqonayaa wiil reer buu noqonayaa ana wiil ma haysano wiil reer hebel ma haysane nin tuug oo lacag haysana ninka ka daba yimaada waa tuug isaguna waa intaa waa tuug iyo tuug kalkaal marka kii lacagta uu siin jiray baan u aragnaa abeeraad waliba arinta hadii xabuurka ku badan tahay si gaar hadii xabuurka way ku badan tahay iyo xaafadaha soo waliba ku badan tahay arintaas ma aragtay iska ilaalisan baa yaan ma soo jeedinayna aad bay ugu badan tahay arintaas marka tuugta waa qabanaynaa talaaba laga qaadaya wixii ay boobe inta loo daayo noqon mayso in dad kale daawadaan la yiraahdo waagi uu ka faa'iido 10 sano ka faa'iido la yiraahdo ma soconayso waa inuu eedaa qof waa inuu eedaa wixii dadka dilay gudiya loo saaraya gudi baaritaan qof wax dilay dadku kuma dhex noolaanayo sharciga la marinaya qofkii la khalday ee uu akhlaaq xumo iyo xisaabeeyay in dhaqan cilis loo sameeyo inuu bulshada oo hagaagtimo ku isna hagaago toobad keeno waa loo ogolaan karaa fursad baa la siin karaa laakiin ma dhici karto dadkii shalay dadka dhibaateeyay waxa geysanayay ee wali si dagaalamaya fiiqsi leh inay ummadda ku sii dhex jiraan meeshii doonaa joogaan ma dhici doonto haba yaraatay sayna uga taan